mahad celinayaa madaxweynihii aniga ma garanaysaa ay keenay meeshaas madaxweyne Farmaajo ayaan anigu runtii u mahad celinayaa oo aan value weyn u hayo qiimo weyn aan u hayo runtii oo doonayay waxaan qabanayna inaan qabano lacagta saal loo ilaaliyo wadanka horumarkiisa in laga shaqeeyo asaga really ayaa ku tawaafalsanayn haddii kale ma joogi kareen ama anaaba ka tagi lahaa ama duruufaha kale ayay igu qasbi lahayn inaan ka tago maaragta marka kaliya ma yahayn dawladdu waxay ku shaqeynaysay madaxweynaha guardianskiisa ku shaqeynaysay taasi inaan wada ogaano ayaan doonaynaa runtii Soomaaliya iyadoo burburaba meesha nimay burbur oo maskaxda ka burburtay oo dadku dawladda aaminsanayn oo dawladda cid kale aaminsanayn oo Soomaaliya halka lagu xiray geed lagu xiray ayaa runtii nimay oo waxa tidaan cidina waxba ka soo qaadin oo shirarka lagu soo diray adigoo minister qaar hoose dad hoose lagu soo diray maartay adigoo minister hees baa jirtaan sameeyay bari dhaxdii hayd oo la yiraahdo ariya oo dhan rag baa siman oo abidkood sinaan jiray miyaan geelba sibir godan oo nidhaa rag baa siman de ma sina rag waa ka ministerkii Bayle oo wasiire loo soo diray qof hoose loo soo diray haddaan qaabili waayo cid qaabilaysa ma jirto tan baana iga jirta maxaa ii diiday inaan ministerka America arki karo I have never seen that guy dhigayga aanu ma arag marka baliyaa oo rag baa siman YouTube-ka ku jirta dhageysta marka waxaan sidaa u leeyahay waxa weeye ku dheereen ma iyo waxyaalo fara badan baa inaga khaldana waxa marka quwadda aan saarnay waxa weeye in la inagu kalsoonaan karo trust and confidence in what we do and how we do things inaan la fadhiisano dadka meelaha kale ka yimid oo aan ka hoose yimaado qanciyo ka ku xiga qanciyo deebtana meel sare aan dalka soo gaarsiino trust kaasa very important noqday waxayna soo gaarsiisay taasi in la yiraahdo Soomaaliya waa inay caawisaa wadanada kale ee deen afinta wadadeeda soo maraya ku jira halkaas aan soo gaarnay in zoomka la soo galiyo wadana kale oo ka dhacayo hadana soo noqday oo hadana ka dhacayo hadana soo noqday la noo yeero hadii laga hadlayo fragility and vulnerability of countries hadii laga hadlayo Soomaaliya in la xasuusto loo yeero inay Soomaalida u yeera baan soo gaarnay 5 years wax ku oola weeyaan wax ku oola waxa kale waan isku daynay trust buildingka ummadda Soomaaliyeed cashuur bixiyaasha inay iyaguna nagu kalsoonaadaan leena meesha loo jeedaa waxa weeye adeerow isku filow dad wax tahay isku filow wuxuun bad bari ila waliga adigoo resource gaale baleeg Ilaahay baan kugu dhaariyay wadankeena wadanada qaar ee maanta developed ka ma doonay in magac sheegay roobka booramo kaliya ku daa ayaa ka fara badan roobka dawladda dalkan ka hadlay ku daa just booramo roob ku daa ka badan nation kaas oo ku daa and they are very developed ana arkay ana joogay cuntadooda iyaga soo saarta annaga caanaha balanoo soo dibadda ka soo iibsan caanihi it's not a joke caanihi so Somalidu livestock people way Somalidu and from what I know milk comes from livestock right unless something has changed we are a livestock country caanihi baan dibadda ka soo iibsanay imka and if we continue the way we have been doing business and maalin dhaweedna waan idhi bananas will be imported everything will be imported maxaan ku filanay marka maxaan ku filanay runtii maxaan ku filanay iska soo tooseynaa waa iska soo soconaynaa dadkaan bariyeynaa hadaan dawladnahay hadaan individualsna shaxaad baan ku noolahay marka fadhiga in fadhi looga noqdo hadaan Soomaalinahay baa loo baahan yahay marka waxaan isku daynay dadka cashuurta bixiya intaan in yar ka qaadno inta yar nagu taskareeyaan oo committee-ga muxuu mushtariga ku shaqeeya ganacsatadu ay nala shaqeeyaan oo ayaguna formulada halka ka soo fadhiistaan intaas aan qaadnay soo maaha end of the month waxaan sameeyay waxa la yiraahdo meet your minister day every end of the month aan uga warramaya wixii aad noo dhiibteen iyo waxaan ku fallay
ya marka hadii wixii la isla wada og yahay soo taraysamayso kaana mushaarkaasaan ku bixiyay kaana kaasaan ku bixiyay kaana kaasaan ku bixiyay $2 bay noo saaray markaas dabeetana dakhligii kordhay u laban laabmay ya every year 30 milyan ku beeran every year 30 milyan ku beeran ya budgetkii 200 ka soo bilaabmay ayaa 1 bilyan imika sanadkan aan ugu talagalay inuu noqdo marka waxaan quwadda saaray waxa weeye in dadka adduunkuna inuu kalsoonaan karo aan ogaan karaan inaan wax qabsan karno oo waxaad ka hadlaysaa aan fahmayno niyo ninka meesha fadhiyo aan fahmayno aan isla hawl gali karo aan wax kala seexan karo waxaan kala seexana maalintan halkeedii gaadhnana aad arki karto inaan ka soo baxnay 100% ka soo baxnay now arinta la yiraahdo deen cafintu ee pardon bay dhaqaalaha ka tahay deen cafintu imtixaanay leedahay deen cafintu conditions bay leedahay marka hore lagu adkeeno leeyahay kama soo bixi karo xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye IMF ku website-ka dadka shawaad ka heli Soomaaliya scored number 1 the highest 3 wadan oo galay arintaas oo Afrikaana Soomaaliya scored number 1 in terms of the speed aan ku soo gaarnay halkii loo baahnaa iyo performance-ka meedan ma keenana meedan ya marka shaqo badan baa inoo hadhay ilaahay wuxuu naga habaaray inaan waxaan wada leenahay wada maamuli karo waxaan wada leenahay ma wax laba qof wadayno business ma public sector baa ilaahay naga habaaray waxaan soo ururinay wada lahayn inaan wada maamulan karo wixiiba waa up for grabs bob ilaahay taasoo naga habaaray waxa kale oo naga habaaray intaynu meel isugu nimaadno inaynu ismaamuli karo oo isdooran karo ya oo dadku madaxweyne mooda noqon karaan isma dooran kareenaba walaw kala yaacaya nin walba qabiil wax sheeganaya dibeetana waa kala tagay waa kaan walba geed yar magac calan ku laashay bugti ya marka habaarka waxa doonayna mashaayikh inay noo duceeyaan oo inay duceysanaan u baahanahay habaar bay nagu dhacay inay duceysano ayaa runtii u baahanahay ducada waxa aqalha wa tawakkalti weeyaan soma in shaqo la qabtaa loo baahan yahay shaqo in la soo tooso waqtiga la ixtiraama loo baahan yahay kol hadaanad waliga arkayn nin Soomaaliya oo sagaalka aroorta la balanto ku imanaya ever in your life haduu ka la balamo u iman kol hadaanad arkayn 10 qof oo Soomaaliya oo sagaalka balamo isku yimaada it's a challenge for you guys try it yourself it will never happen xageen marka la inaga jiidanaya tolo xageen la inaga jiidanaya ila time is money time is money ya adduunka waxa la science wuxuu ka soo bilaabay mathematics zero bay ka soo bilaabatay definition of zero what is zero waa philosophy dan marka shaqooyin badan oo markaad xanuunkaaga aad garato oo baad sheeko daweyn kartaa Soomaa markaad xanuunka garato haddaad waxba ma hayaan doonayso wareed waan buknaaye aris daweyno oo cudurro inagu jira hal inaga dabiibo ya ya sheekha hal inaga dabiibo dhibaatadaas ay haysata negative midhan inaan wada ma laakiin wax badan ma soo qabanay I can assure you anu hadii Soomaalidu sida 5 sanadood aan ku soo soconay lagu socdo aniga waxa ay muuqda another 5 years Somalia will be a developed country ya hadii saa lagu wado doorashadana la hagaajiyo one person one vote inta la galo dadka Soomaali cid doortaan maxaan isku dooran laanahay bal ii sheeg maxaan isku dooran laanahay waxa dadka chance loo siin loo doorto dadka kale individuals yaryar oo xogaa lacag haysta oo cid doona bay inay ibsadaan raba badiidan hostage baan nahay dadka majority is hostage being majority of the Somali people marka dadkiina xorta ah ee dhulkan jooga making it very good ya tacliinta bartay waxa loo baahan yahay isku tagtaan how do we govern ourselves better ina mashruuc ka dhigataan take the lead it's your country too right take the lead marka waxaan ku soo gabagabeynaa waxa weeye waan idin mahad celinayaa anigu kullayba inta cimriga ka hadhay waxaan jecelahay wuxuun baan ku filaani Soomaalidu meel badan bay degtaa maaragtay ama kilalkan tagi ama wajeer baan tagi ama muqdisho ku noqon kullayba qofkii wax ku filan
ya wax badan oo aan ka rabaana ma jirto oo retirement-kayga igu filan as a matter of fact laakiin kullayba challenge bayna haysta life without challenge is boring right boring 9 to 5 job what is that it's very boring adiga waad la garanaysaa Soomaa laakiin tani waxa way every day adrenaline ta cirka ku socota tolo ma lagu dili ma lagu toogan alla ilaa maanta waxba qabatay baad soo waxa yareed qabataa wuxuu soo saaraya wax weyn soo saaraya ya marka waan salaamaya waan idin soo dhaweynayaa shaqo badan baa inoo taala salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh